waxaan oranayaa Somaliland waa bestii waxaanay u baahan tahay in laga badbaadiyo wixii iyadu madaxweynihii iyadu ay gacmaheeda ku dooratay sida dimuqraadiga ah u dooratay nasiib darro maalin kaliya oo 4 sanadood ee xilka uu hayay ah aan ka talin dalka aan isagu madaxweyne ka ahayn awoodihii dastuuriga ahaa isagu oo lahaa ay dumar iyo inama yaryar adeeru yahay iyo ku sadogu yahay ay ku takrifalayaan marka la isku darana casaabadan inaan maantadan lafteeda ma xukumo dalka waana qaana waxaan la sameynayana ma sameeyo isagana kama imanayso laakiin waxa weeye madaxweynaha ku ahayn dalka ma taliyo haddaan idinku celinayaa ninkaasi sidii loo doortay dalkan muu ka talinayn dad kale ka talinayn Somaliland ma qaadi karto wax ka badan 5 sanadood oo bilaa madaxweynaha maanta waxa la leeyahay sharxay odayaashana arkaysaan wadada la soo iyo waxaan TV-gan anigu waxaan ilaaahdaa khasaare weyne kan qaranka aad tiraahdaa odayaashan waqti ku macaashka ee la soo taagayo isagana kursiga caawa loo dhigaya kolkaas la oranaya balak waa kuwa salaadintii reer hebel waxay leeyihiin madaxweynaha musharaxiintiisa waan taageersanahay maalinta dambe haddana barco balak galbeedkii barcana waxay leeyihiin madaxweynaha musharaxnimadiisa waan taageersanahay dabadna boorama maalin kale cid inta la soo aabilaya balak boorama adiga ma cid kale lama doonin waa lagu maaweeliyaa waa lagu madadaaliyaa horena waxa loo yiri maaweela ma bogsiisa meel ku bogto ma biiso madadaalo murugada maanta shalay waxa laga hadlayay wuxuu ahaa isbedelku waxa weeye wax meel wanaagsan ku maraya oo aad hormarinayso oo aad wax dhaamo ku bedelayso laakiin maanta tama maanta waa salvation waa badbaadin qaran doorashadan casaabad baa dalku waa afduuban yahay weydinka arkaya sharci wixii la oran jiray waa la iska tuuray waxa la sameystay hadii weydinkeeda leeyahay kuwii argagixisada inay la dagaalamaan loo sameystay baa argagixiso loo bedeshay oo haday soo qaadaan qoladan wadaadada ah al-i'tisaamiye meeshan xukuumadda ku dhex jiray ee haysta cidii soo hadal qaado waa lagu weerarayaa cidii saxaafadda hadasho waa lagu weerarayaa taariikhda Axmed Siiraaye waxa ku jirta inuu yahay madaxweynihii kaliya ee taariikhda Soomaaliland Soomaaliya ee laba jariyadood dalka ka soo baxay albaabada Cabdiraxmaan ma soo ahayn Maxamed Xaaji Ibrahim cigaal taama soo daahir riyaal taama soo shakhsiga qulaha sameeyay maxaan u sameeyay magaciisa baa dalka lagu xukumo halka aad u fiirsado Axmed Siiraaye magaciisa dalka lagu xukumo laakiin isagu dalka ma xukumo marka ciidan ku xukunta magaciisa ayaa deen noocaas dad aqli lahayn garasho lahayn dadnimo ka qabanay diini ka qabanay damirna ka qabanay marka xal kale ma hayno oo aan ahayn in aynu hadii alla yiraahdo doorashada soo socota awoodeena oo dhan isugu geyno in ay qabsoonto hadii alla yiraahdo oo ay si nabadgeliya u qabsoonto halka casaabada la iskaga dili doona waxa weeye markay wax waloo kalaba walaaqdaan inay haddana doorashada dabcaan in ama ay dib u dhigtaan ama ay noqoto mid aan xor iyo xalaal midna ahayn waynu naqaan aqliyadooda doorashadii golayaasha deegaankeena ku baran marka waan idin sheegayaa 84 xil ee ugu mudan wadankan ayay shacbiga Soomaaliland fursad u leeyihiin hadii alla yiraahdo kal dambe iyagaanay u taala inay dadkan maanta jooga dad dhaama ku bedeshaan baarlamaanka nimanka baarlamaanka la yiraahdo way ka xun yihiin xukuumadda 10 sanadoodna way joogaan welina waxa laga yaabaa inuu hunguri ka hayo in loo sii kordhiyo xukuumaddu marka qurahe ay wanaagsan tahay waxa weeye marka la barbar dhigo baarlamaanka ay xukuumaddu wanaagsan noqonayso waayo xukuumadda baarlamaanka ka dhigi kari lahaa oo xad accountability sameyn lahaa marka ay wixiiba noqoto hungurigooda wax jooga inta hunguriga iyo mushaharka ayay joogaan
toban sannadood wax ka badan xaq uma laha inay maalin joogaan madaxweynahana guul uga horeysaa ma jirto muddadii 5 sannadood ee ahayd markuu dhamaysto wuu iska tegayaa haddii alla yidhaha insha allahu tacaala ciddii ka heshana inuu si nabadgelyo ah ugu wareejiyo oo sidii isaga loogu wareejiyey ah doorashada laga wada shaqeeyo waxa bariyaha lagu mashquulsan yahay diiwaangelin aynaan garanayn oo waxaynu maqlaamo xeer baa la sameeyay wareegta madaxweynaha la magacaabay guddi baa la magacaabay mid gobol baa la magacaabay tumus dambeeda la magacaabay guddi diiwaangelin baa la magacaabay ilaa iyo kabkii yaraa ee la siin jiray kabkii yaraa ee la siin jiray dowladaha hoose ayaa la yidhi waxaa lagu siiyaa mashruuca diiwaangelinta bilaa magaca ah ee la sheegayo waana diiwaangelin aan waxay tahay la garanay ha walaaqdaan tii kale way socotaa dhaqsana way u bilaabaysaa maantana waraaqaheedii haynaa tii codbixiyayaasha ee rasmiga ahayd ee la isku ogaa ee madaxweyne iyo commission iyo xisbiyaba la isku ogaa ee doorashadu ku xidhnay way socotaa carqalad la geliyo taana ma ogolaanayo bal haddana waxay ka keenaan iska walaaqdaan dee anagu garanayno waxay uga jeedaan mana taageerayno waxaan kusoo dhammaystirayaa caburintan saxaafadda iyo arrinkan cabdigaba waa xiniyo taabasho waa qabyaalad waana xiniyo taabasho inama yaryaroo uu sinaanya adeer u yahay ayaa saacaday doonaana xidhanaya saacaday doonaana soo deynaya waa qabyaalad cad baan leeyahay axmed sinaanyo waddankan qoysnimo iyo qolonnimo qaran baa ku duma waa fariinta aan u gudbinayo maanta ee aan kaga baxaya aan u gudbinayo axmed sinaanyo waxa weeye axmedow waxaad u xidhxidhaysaa xaafadan iyo cabdi gaboobe ba waa qabyaalad aniguna waxaan ku leeyahay qolonnimo iyo qoysnimo qaran baa ku duma ee qaran laguma dhiso wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu